Assalaamu calaykum. Wada sheekaysi aad u xiiso badan oo dhex mari doona wiil iyo gabadh. Waa Cabdi iyo Aamina. Cabdi ayaa hadalkii bilaabay. Hello my sister. Hello my sister. Iska wara walaashay ama assalaamu calaykum oo kale. Hello too. Way ka qaaday Aaminina. Cabdi ayaa hadalkii sii qaatay wuxuu yidhi you look gorgeous today. Maanta aad baad u qurux badan tahay. What a nice outfit. Alla labiskan qurux badan ama labiskan quruxda badan la muxuu ahaa oo kale. You look gorgeous today. Maanta aad baad u qurux badan tahay. What a nice outfit. Labiskani qurux badanaa muxuu labiskani yahay labis aad u qurux badan. Aamina ayaa hadalkii sii qaadatay waxay tiri thanks for your compliment. Thanks waad ku mahadsan tahay for your compliment amaantaada. Thanks waad ku mahadsan tahay for your compliment amaantaada. Do you know mataqaanaa Cabdi ayaa yidhi do you know mataqaanaa the direction jihada to the supermarket loo maro supermarketka. Do you know ma garanaysaa the direction jihada to the supermarket loo maro supermarketka. Aamina ayaa tirid sure thing haa waan aqaanayo kale si fiican baan u garanayaa oo kale. The supermarketku is located wuxuu ku yaalaa is located behind the building wuxuu ka dambeeyaa wuxuu ku yaalaa dhismaha gadaashiisa ama dhismahaasuu ka dambeeya. Sure thing waan aqaanaa the supermarketku is located behind that building dhismaha gadaashiisa ayuu ku yaalaa ama dhismahaasuu ka dambeeya. Hadalkii Cabdi ayaa sii qaatay wuxuu yidhi I appreciate waan kugu mahad celinayaa your help caawinimadaada siisa walaashay. Waan kaaga mahad naqayaa I appreciate your help sister. Waan kaaga mahad celinayaa caawinimadaada walaashay. Marka Aamina ayaa tiri don't mention it. Ha sheegin waxaas wax weyn maaha wax la soo qaadi kara maaha. Don't mention it. Ha soo qaadin oo wax weyn maaha dee. Happy to help you outfit out. Help to help you out. Happy to help you out. Waa ku faraxsanahay inaan ku caawiyo. Marka Cabdi ayaa hadalkii la sii wareegay wuxuu yidhi would request your number lambarka would request your number waxaan jeclaan lahaa inaan kaa codsado lambarkayga if you don't mind hadda aanay dhib u arag if you don't mind haddii aanay dhib u arkayn waxaan kaa codsan lahaa nambarkaaga. Would request your number waxaan kaa codsan lahaa nambarkaaga if you don't mind haddii aanad u arkayn. Marka waa qaab xushmad leh oo ayuu u weydiiyey lambarkii. Marka Aamina waxay ugu jawaabtay I am a married wife. I am a married wife. Waxaan ahay gabadh xaasleeya. Sorry waan ka xumahay for asking weydiinta lambarka aad i weydiisay waan ka xumahay. I am a married wife. Waxaan ahay gabadh la qabo oo xaasa. Sorry for asking waan ka xumahay weydiinta aad i weydiisay. Marka si fiican ayay ugu jawaabtay. Cabdi ayuu yidhi no problem dhib male but laakiin the girls always sees badanaa dumarku way xejistaan their nambarkooga way adkaystaan buu yidhi in the name of marriage iyagoo ku marmarsiyoonaya guur while halka they are not married iyagoona guursan ayay ku marmarsiyoodaan xaas baan nahay. Marka waa cajiib no problem dhib male but laakiin the girls always sees badanaa dumarku way xejistaan lambarkooga their nambarkooga in the name of marriage
iyagoo ku marmarsiyoonaya guur while they are not married iyagoo reer lahayn bay dhahdaan reer baan leenahay markaa marmarsiyo ayay ka dhigtaan kuwa Soomaaliduba waa kuwa yidhaahda haddii wax la weydiiyo ama lahaas oo la is idhaahdo xaas baa leeyahay bay dhahdaan Amina ayaa hadalkii sii qadatay I am not among ma ihi bay tiri I am not among such as girls ma ihi gabdhaha noocaas oo kale ah I am not among such as girls ma ihi gabdhaha noocaas oo kale ah I am not among such as girls ma ihi hablaha noocaas oo kale ah brother walaalkayow and a lion isn't in my book and lying beentuna isn't in my book buugaba iguma jirto yacni ma sheega been oo gabadh beenta taqaana maba ihi shuu cabdi baydhow shuu haa ama hubaal I can sense the truth from your eyes wejigaaga ayaaba ka muuqataa inaad tahay qof aan been sheegeen shuu haa I can sense the truth from your eyes wejigaaga ayay ka muuqataa runtu ayuu yidhi Amina ayaa tiri yee haa you look waxaad u eg tahay a kind person wiil naxariis leh qof naxariis leh ayaad u eg tahay and will pray you waxaan kugu ducaynayaa to meet the right person inaad la kulantid qof saxa to share life with aad la wadaagtid nolosha ayay tiri you look waxaad u eg tahay a kind person qof naxariis leh and will pray you waxaana kugu ducaynayaa meet the right person inaad la kulantid qof saxa to share aad la wadaagtid life with qof saxa oo aad nolosha la wadaagtid ayaan kugu ducaynayaa wuxuu cabdi yidhi markaa thanks for your kind words thanks waad ku mahadsan tahay for your kind words ereyadaada naxariista leh it is a day maalintii it is a day maanta I wouldn't forget ma ilaawi karo meeting you la kulankaada it is a day I wouldn't maanta waa maalin I wouldn't forget ana ilaawi karin meeting you la kulankaaga Abina ayaa ku soo gabagabaysay good to see you kulan wanaagsan aragti wanaagsan bye nabadgelyo cabdi ayaa yidhi a pleasure to see you waan ku faraxsanahay inaan kulanno sidoo oo kale bye nabadgelyo casharkeenii maanta intaas wuu ku egyahay maca salaama